Wax ku dhow 14 sano ka hor, qof magaciisa ku sheegay Satoshi Nakamoto ayaa horumariyay oo ikhtiraacay lacag dijitaal ah oo ugu magac daray Bitcoin. 31 Oktoobar 2008 ayuu koox khubaro ah oo cryptographics ah u diray xog uu ku shaacinayo inuu daah qaaday lacagtan Bitcoin-ta. 2 bilood kadib, January 2009 ayay soo shaac baxday oo suuqa timid. Xilligaa waxay ahayd markii ugu horeysay ee bini'aadamku ku baraarugo lacag aan ahayn tii warqadda ahayd oo la doonayay in la isticmaalo. Sanadii 2011 bishii koowaad ayay Bitcoin halkii coin gaadhay qiimo dhan $1. Maanta oo xilligaa laga joogo 11 sano, halkii Bitcoin qiimihiisu waxa uu joogaa $37,000. Waxaa la rajeynayaa inuu gaaro bilaha 8 iyo 9 ilaa $100,000. Satoshi Nakamoto waxa uu hindisay oo keliya 21 milyan oo coin, kuwaasoo 19 milyan oo ka mid ah ay suuqa ku jiraan. Waxa kaliya ay haray ayaa ah wax ka yar 2 milyan oo coin. Mar la weydiiyay Satoshi inay yartahay cadadka Bitcoin, ayuu ugu jawaabay in mustaqbalka ay noqonayso mid qiimaheedu aad u sareeyo oo aysan u baahnayn inay tahay mid badan. Satoshi lama yaqaan waxa uu yahay iyo cidda uu yahay, xogna lagama hayo. Waxa uu tilmaamay 2008 inuu ahaa 37 jir saynisyahan kombiyuutar ah oo Jabaanees ah. Xog intaa ka badan ma sheegin, si cidna ma hubto waxa uu yahay maanta. Dadka qaar waxa ay tilmaamaan in magaca Satoshi uu yahay koox magac ay adeegsanayso oo uusan ahayn hal qof. Koox kale waxay ku doodeen inay adag tahay in kooxii muddo 10 sano ka badan ay qariyaan sirta aqoonsigooda, taas awgeed uu yahay hal ruux. Bitcoin maanta waa lacagta ugu qiimaha sareysa dunida. Qiimaheedu suuqa waa in ka badan 700 bilyan. Qofka maanta haysta Bitcoin waxa uu awoodaa inuu wax kasta ku gato, keedsadana hantidaas sidaas u qiimaha badan. Ilaa hadda sirdoonka caalamku weli ma daaqaadin cidda hindistay. Waxaa la tilmaamaa in Satoshi uu haystay 1.1 milyan oo Bitcoin ah oo u dhiganta maanta dollar ahaan 23 bilyan oo dollar, una dhigmi karta dhammaadka sanadkan ilaa 200 bilyan oo dollar. Magaalada Budapest ee waddanka Hungary ayaa looga taagay taalo lagu maamuusayo aadamaha caqliga badan ee daah qaaday nidaamka hantideed oo maanta u dhigma 783 bilyan oo dollar oo ay haystaan dad 70 milyan oo qof kor u dhaafaya. Waxaa cajiib ah qofka nidaamkaas daah qaaday in ilaa maantadan aan la ogeyn cidda uu yahay. Satoshi waxaa la shaqayn jiray koox cryptographic ah tan iyo 2010, xilligaas oo fariintii ugu dambeysay ee uu u diray ahayd waxaa jira shaqo badan oo u baahan in la qabto. Wixii intaa ka dambeeyay dib looma arag. Rag badan ayaa sheegtay inay yihiin Satoshi, caddeyntii looga baahnaa ma aysan keenin.